لا نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. waxaa commenti lagama soo bixiyo qofka kula dalagna uma saarteen balagna ha u saarina commentiga oo dhigkina waad xiran lahaydeen commentiga ya marka commentiga dad xiran lahaydeen inta waxa soo dada oo commenti kama soo saareen like inta soo dadana may soo saareen ya videoga dadka uu khalkhaliyay dadkuna way diideen in masjid la galo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada kanalka naga daawaneysaan waa Sixol fadlan channelka dadka cusub taa subscribe to noo saar like noo saar comment kuna waa dhaka minaa hal kaliya nagu leedahay waa commentiga ku dhaxrafo waxa doonto noo soo qorkay. Marka maanta waxaan reaction ka bixin doonaa arrin yar oo booqday oo xagga YouTube ka booqday xitaa TikTok gada la isku yimiday. Marka arrin kalena maahin waa arrinta Hab iyo Cabdifataax Albakri arrintooda weeyaan. Marka masjid bay tageen waxay ku soo duubeen muuqaal adu dad isqabay ku soo duubeen. Marka bal waa isla eeganaa videogooga aan bal isla eeganaa waxaad ku oran kartaa adiguna ku dhawkay full screen. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا نرضي الناس. waa ka horta videoga waad aragtay videoga lagu tilmaamay waad aragtay. marka videogan qof kale TikTokana waa la dhaxwadooday khalad weyn way sameeyay lahaa. marka commentigii oo dhanba iyadoo noqdo waa commentigana ilaa waa commentigii horeeyay kii labaad kii saddexaad kii afraad. marka waxa oo commenti ah baa laga soo bixiyay. marka 4000 ilaa 3000 commenti baa laga soo bixiyay malaa. marka dadka commentiga ka soo bixiyay oo lahaa sabab bay masjidka u tageen sababtii masjidka u tageen waa maxay. marka dadkoo dhan hal sabab bay wataan. halkaas sababna waxa weeyaan waa sababtii masjidka ay u tageen ay fiidiyoyada heesaha ay iskaga soo duubeen. sababtaas la wada weydiilaa dadkoo dhan ay soo wada qorayeen. ninkan Malaysia joogana uu ka soo bixiyay reaction wuxuuna yidhi dadkan waxay masjidka u tageen wax kale maahan waa inay dadka ay wareeriyaan. okay ka intiisa taas ka gudbeyna. marka si keena reaction buu ka soo bixiyay. marka dadkoo dhan way wareersan yihiin TikTokana waa la dhaxwadooda fiidiyoyadooda. marka anu horta waxaan isdhihi lahaa dhakayga minaa waxay masjidka u tageen wax kale maahan waa inay sawirro aad ku soo galgalaan. sawirrada horta waa qaladba iyo heeso inay ku soo duubaan. laba heesood bay ku soo duubeen. labadii heesood baa hadda TikTokga way yaalaan. minaa waxaa saarta like 180 qof baa like saarta. minaa dadku waxay like u saarayaan baaban ka yaabinyaano ya waabana ay siin sababta like u saaraysiin waa maxay 180 like loo saaray waxaana daawatay 1 million views baa u daawatay ya. marka 1 million views ka u daawatay horta waa caadi qalad maan. haddana video kale bay soo dhigtay ayadoo masjidkii ku jirta bartamaha ayadoo soo ku jirta ay soo dhigtay. haddana 150 like kiina la siiyay. dadkii aab siinaya like dadkan commentiga soo qorayo aab like siinayo ya. من هذا like تسين like أي كأشان لهاين فيديو جانا وما قرحنين وما نكلا كعدين. مركا أيضا بيسكح لله الفيديو برايفت بيقول له الفيديو تكيب like سي كدب واحد يمودون بابليكم بيمودون كدب إسكا صورة تو فيديو كلا نو إسكا صور لقيته. مركا أرنتاس أيضا أنتاس أيضا كيجود بينا مركا سيكي كل كسر بحين وحولي مساجد كواحد كلا وما يسن آدم بيلي إني فيديو أي إسقابان أو عمل أي كسر دوبان أيودي. مركا تاسورت أنتاسان كيجود مني. marka talabaada idin sheegi laana waxa weeye commenti lagama basoo bixiyo qofka kula dalagna uma saarteen balaagan laakin ha u saarina commentigu waa dhigkina waad xiran lahaydeen commentiga ya.
marka commentiga dad xidhan lahaydeen imika inta waxaa soo dada oo comment kamay soo saareen like inta soo dadana may soo saareen ya videoga dadka uu khalkhaliyay dadkuna way diideen in masjid la galo wada muslimiinta dadku iska diideen in masjid la galo taasna waa laga soo wada horjeedaa talabaada idin sheegi lahaa waxa weeyaan masjidka kolkay galayeenba kaameramanku dulqaad ku lahaa aan iga yaabay dada midaba soo qoray kaameramanku dulqaad badan uu soo qoray ma garad marka kaameramanku iyagoo lacag baysan karaan qasabado qofun baa ka duubay marka maanta muuqaalkeena ku sii dheeraanayna waa inta marka videoga xigta kulmi doona waxaan idinka tageynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh